madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo muddooyinkii la soo dhaafay ula shaqo u joogay caasimadda dalka iyo wafdi ballaaran hogaaminayo ka kooban labada gole baarlamaanka iyo xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo kormeynay maanta markii ay soo gaareen magaalada Joor goobaha ka fatay webiga Shabeelle wuxuuna ku baaqay in si wadajir looga hortago webiga wuxuuna ammaan u soo jeediyay shacabka iyo ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle oo iskaashaday wuxuuna ku ammaanay dadaalkii ka geysteen in la joojiyo fatahaad webiga Shabeelle ciidamada iyo shacabka dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha ayaa ka hadlay muddadii uu maqnaa kulamo uu la qaatay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo hay'adaha caalamiga wuxuuna sheegay in ay jiraan waxyaabo fara badan oo ay ka wada hadleen oo ku saabsan horumarka dowlad goboleedka Hirshabelle. Wallaahi barakaatu qala salaam aadan ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto caasimadda Hirshabelle Jowhar sida ogtihiin ba bariyahan waxaan howlo shaqo ugu maqnayn magaalada Muqdisho alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iskale si guulahay noogu soo dhamaadeen howlaha aan u aadnay saakan ka soo baxnay Muqdisho wadadan soo marnay waxa sidoo kale idan noola soo dhaweeyay degmada Balcad guud ahaan xaqiiqdii waa dadaaleen ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dhanka amniga bulshaduna waa bulsho abaabulan aad loo dadaalay qof kasta gacan ka geysato waxaan leenahay ilaahay ka abaal mariyo xaqiiqdii waxa u baahan in wax laga qabto sanadheynaba ku aragna fatahaadi webigaanu dib uu ku haayaa deegaankan oo maro ee Hirshabelle madaxda dalka ugu sareysa ama madaxweynaha ama ha naqato ra'iisul wasaaraha intaba waa la kulmay waxaan kala hadlaynaa waxay aheeday masaalixda iyo danaha Hirshabelle haday amniga tahay iyo haday horumarka tahay intaba waa uga mahad celinaa xaqiiqdii aadan noola soo dhaweeyay wixii aad qabateen waxaan qabanana waa nooga mahad celiyay insha Allah waana garabkiina ana taaganahay madaxda qaranka yiraheen madaxweynaha uu sareeyo iyo ra'iisul wasaaraha ma aragtay hay'ado ma aragtay danaynaa inay deegaanka wax ka qabtaan waa isku afgaran ay wax alla waxay qaban karaan ayaguna ay qabtaan annaguna insha Allah waa dadaalaynaa aad iyo aad u mahadsantahay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la socota ayaa safarkooda u ahaa mid dhulka ah waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Balcad sidoo kale markii ay soo gaareen degmada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la socota ayaa soo maray safar dheer oo u dhaxeeyay Muqdisho iyo Jowhar iyadoo waliba mas'uuliyiintu ay istaagayeen goobaha kooxaha argagixisada ay ku dhibaatay direen shacabka halka lagu magacaabo haanta Sheekh oo halkaasi tobaadii la soo dhaafay ciidamada militariga ee Amisom fariisimo ay ka sameysteen Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.